السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو هذا مرة بعد channel كم قاعد يقول خضر ميعاد. السادة دوكسون تهين بريهان وح إنه سعودي 10 ذيني كساب سنة برنامج فوتوشوب كا marka maanta waxaan jeclaysanay inaan barnaamij kamid ah barnaamijyada shirkadda Adobe ay leedahay oo barnaamij caana oo videoyada lagu edit gareeyo in aan wax ka aragno isla aragno qaabka uu shaqeeyo iyo sida loo isticmaalo. intaa kadib salaasadii iyo la iga sugina video soo geliyo ama ay ahayd sida mawcidkeena salaasadii video soo geliyo waan yar xanuustay laakiin hadda waan alxamdulillah waan caafimaad qabaa. odaygu markaan waxa way xataa ya coronavirus waa iskaga shakiyay wallahi hargab xun intuu igu dhacay marka alxamdulillah hadda waan caafimaad qabaa ilaahay baa iga wanaagsan. intaa haddaan ka imano barnaamijka waa kana Adobe Premiere Pro yaa la yiraahdaa waa barnaamij lagu edit gareeyo videoyada ama sawirada laftirkooda qofkii raba slide show inuu ka sameeyo uu cod saaro ama heesa noqoto ama muxuu ahaanay marka yacni raba inuu ka sameeyo sawiro oo taxanayaal si video qaab video iyo kala. marka barnaamijka markaa furto daaqadana ku soo baxaysa oo ah in aad project cusub furto iyo in aad project oo hore computer kugu sii jiray in aad dib u edit garayso. open haddaan dhahno wuxuuna siinayaa in aan raadsano projectiga markaa kolka hore aan ku shaqaynaynay oo ahaa in uu noogu save garaysana daatada. taas marka hadda uma baahnin laakiin waxaan dhahaynaa new sidii tii hore noogu taallay waa kadib uu noogu soo celinayaa oo ah new project. marka project new project aad dhahdo projectiga magaciisa ayaad ku qoraysaa halkan u sareysa waxaan dhahaynaa tijaabo. dhinacan waxaa waaye waa destinationka meesha uu kugu save garayn doono projectiga. marka halkan haddaan imano render waxay ka dhigan tahay barnaamijku siduu u shaqayn lahaa ama markaad isticmaalayso uu kugu yacni si fiican kugu shaqayn lahaa ma waxaad rabtaa inaad ka dhigatid graphic maxaa kaarka inuu kugu shaqeeyo mise waxaad rabtaa softwareku inuu kugu shaqeeyo. yacni waxaan ka wadaa software walba wuxuu leeyahay process yacni oo uu ku shaqeeyo iyo graphic ayuu u baahan yahay. processka wuxuu ku shaqeynayaa processka daatada aad isticmaalayso laakiin graphicka marka computer badan waxaa jira graphic card aan lahayn. hadduu computerkaaga uu lahayn graphic card waxaad isticmaalaysaa tan hoose oo ah Mercury Playback Engine Software Only. haddii laakiin aad graphic card aad leedahay taasaad ka dhigi muhiim ah hataad graphic cardka yacni kugu dejisan. haddaad u aragtay in computerada qaar waxaa jira muxuu ahaadaanay processorka iyo graphic cardku ay integration yacni isku dhex jiraan. marka computerkaagu hadduu sidaa uu yahay oo graphic cardkiisu uu dedicated uu yahay oo uu is ugu rakiban yahay taasara dooro. haddii laakiin processorkaagu uu graphic card wato oo aad u baahnayn inaad graphic card ku shaqayso tan hoose aad dooranaysaa. marka haddana graphic card buu leeyahay computerkiina ama daatadiinu tan saraan dooranaynaa. kadib waxaa waaye display format time coding yaan taabanaynaa halkan. allahumma salli ala maxamed waa videoga tan waxaa waaye audioga waxaad u baahan tahay millisecond halkan iyo muhiima. marka DV haddaad ka dhigto wuxuu kugu siinayaa low quality. marka waxaan dhahaynaa HDV yaan taabanaynaa tan uma baahnin marka ani baranka tan ma jeegarayo. marka xaggan markaan ka dhigno HDV kadib okay yaan taabanaynaa meeshuu noogu save garaysan yahayna waa taasa okay baan dhahnay. hadda marka wuxuu na siiyey allahumma salli ala maxamed qaabkii interfacekiisii ahaa ayuuna siiyey. marka dhinacan waxaa waaye open haddaan dhahno waa open project aan hore usoo aragnay. production waxaa waaye waa project isku jirjira ama team project waxaa waaye marka oo adiga qof halkan jooga iyo qof kaloo meel kale jooga saddex qof ama laba qof ama hal project aad ku edit garaynaysa mid waxaa waaye cod ku edit garaynayaa mid waxaa waaye video ku edit garaynayaa muxuu ahaa midna waxaa waaye sound effect ama wax saasa. marka dhowr qof markay kala shaqaynayaan dhowr meelood ay kala joogaan ayaa ay halkan taabanayaan. marka waxaa soo baxay password iyo login information. marka halka haddaan ka imano close waaye tan waa xidhitaankii tan waa save as intan wada naqaanaa. sync settings waxaa waaye setting haddaad rabto oo hal mar preset aad ka dhigatay oo aad rabtid settingka inuu mar walba kugu bilaabo muxuu ahaadana projectiga cusub ee aad furaysid. allahumma salli ala marka tan ayaa muhiima import oo ah soo qaado waxaad u baahan tahay inaad ka shaqayso iyo tan oo ah import recent files waa kuwii aan hore uga soo shaqaynay. marka kuwan waa kuwa aan hadda hore kusoo shaqeeyey. allahumma salli ala maxamed tan waxaa waaye export marka aad barnaamijkaad ku dhamayso oo aad rabto in aad export garayso ama aad xafidato daatada ku xafidato ayaa la yidhahdaa.
kadib media ayaa taabanaysaa asagaa ku export gareynaya hadhowbaan isla eegi doonaa marka waxaan dhahaynaa halkan aan right click taabanaynaa import ayaan dhahaynaa marka import markaan dhahno folderkan ayaan ku save garaystay clipyada aan u baahanahay oo ii yaala desktopka folder cusub aan sameeyay clips haddaad rabto waxbaxaad baa soo qaada haddaad rabtana waxaa waa select all yaa dhihi ama control A kadib open yaa taabani xagana kuu soo dhiga clipyadii oo dhan marka waxaan sameynaynaa 4 clip waxaan rabnaa in videogooda aan 3 clip waxaan ka rabnaa videoga hal clipna waxaan ka rabnaa codka ayaan ka rabnaa marka waxaan sameynaynaa kanaan horta soo qaadaynaa halkanaan dhigaynaa play ayaan dhahaynaa oo bilaa cod waaye okay haddana kan cusub aan soo qaadaynaa xagganaan ka dhiganaa kana cod buu leeyahay waa nin wax karinaya waaye kanaa haddana soo qaadaynaa isna cod buu leeyahay halkanaan dhigaynaa waa hees waaye laakiin sawir keliya ku jira kadib waxaan sameynaynaa intaan alt taabano iyaan scroll mouseka iyaan scroll down sameynaynaa scroll upna waxaa waye waa zoom in adoo alt tahaya scroll down waa zoom out scroll upna waxaa waye zoom in marka haddana kanaan soo qaadayna videogan ugu dambeeya isna halkanaan dhigaynaa waa bilaa cod waa qiiqa waa kana kan wahaa marka sidan haddaan dhahno oo intaan soo wada jeedno oo kan dhinacan aan dhinacaas click siino kadib aan dhinacan soo dhigno okay haddaan kan kor saaro oo kan aan taabto oo aan imaado control effect blend mode-ka haddaan tago oon ka dhigo muxuu ahaadaane allahumma salli ala maxamed screen aan ka dhigo way isdhex galayaan labadii clip mawjada way isdhex socdaan labada clip waxay kaliin laba clip mid waa kan waaye midna waa kana marka waan isdul dhigay blend mode-ka kasaraan ka dhigay muxuu ahaadana screen sidanay noqdeen kanaad haddana soo qaadi haddaad rabtid ood kor ka sii saari asagana blend mode-kiisaad ka dhigay haddaad rabto screen waxa dhan way soo galayaan ujeedaa marka kan halkiisii ku soo celi something like that okay saabaan iskugu dhaweynay kan maxaan idhi waxaan ka rabnaa codkaan ka rabnaa okay intaad taabato click isaga aad siiso markuu saa highlight u yeesho mid walba markaad click siiso highlight buu yeelanayaa si aad uga shaqayso clip si kala duwan kan baan highlight dhahaynaa right click baan taabanaynaa waxana option ah kuu soo baxaya copy waxay ka dhigan tahay effectyaasha aad ku samaysay hadday noqoto sound effect iyo hadday noqoto video effect copy markaad dhahdid effectyaashiisiiba copy kuu noqonaya remove attributes na waxay ka dhigan tahay haddaan imika remove attributes aan dhaho wuxuu ii soo saarayaa waxa le wixii effect aan ku biiriyo o dhan marka haddaan intuu sii sug waxaan sameynaynaa kaba soo qaad effectigaan imanaynaa waxaan tegaynaa allahumma salli ala maxamed lumetric effect cinema effect fade films tanaan dhinacan saan dhahaynaa waan eegaynaa aksaanay noqotay mujida haddaa rabti kuwanaad sii tweak garayn muxuu ahdaa sidii waad xasuutiin baan u malaynayaa muxuu ahaa light roomka markii aan dhiganaynay sidii loo edit garaynayay sidii maaragtay kuwan loo tweak garaynayay light roomkii oo kale waaye yacni base grading haddaad laatiyaal haysato xagganaad ka muxuu ahdan ay dooran kartaa laatiyadaada hadday internetka kasoo dejisatay muxuu ahaa lats waxaa waaye xaggan browse baa taaban meeshay kugu save garaysay baad kadib tegi haddaad rabto specific lats oo aad internet kasoo dejisatay allahumma salli ala maxamed marka inta haddaan ka imano basigiisaan galayn yaan ka hadlaynaa maanta waxaasoo dhan kama hadlayno sida laba clip la iskugu geeyo si clip loo gooyo si iyo cod loogu daro imikaba soo qaadba clipkan waa cod iyo video oo isla socda kan sare waa codkii kan hoosena waa videogii mar walba waxaa ogaataa waxaa kula ogaan kartaa videoga iyo codka waxaa ku sawiran calaamadda mikrofoonka waxa alliyo wax calaamadda mikrofoonka kugu sawirantahay waxa waa cod waaye
kuwan kalena waxa waa video marka right click baan taabanayna unlink ya dhahayna si codka iyo videoga aan u kala goyno kadib waxa waa yani independently yaan mid walba u riixi karnaa codkii iyo muxuu ahaadaanay iyo videogi marka videogan ma rabna hadda kaliya waxaan uga baahanahay waa codka waaye codkaas aan uga baahanahay okay tan ayadana delete iska dheh labadan halkaas isku daa codkan markaa soo hoos dhig soo go markaasaan markaa dhahdo codkii iyo videogii baa isdul galaya kan waa codkii kana waxa waa videogii okay marka waxaan samaynaynaa zoom baan dhahaynaa waxaan rabnaaba inaan videogan qayb ka goyno oo aan intaa dhexda kaba soo qaad intaa ilaa intaa dhexda inaan ka saarna rabnaa meesha aad rabto ayaad imani framekaad rabto kaba soo qaad framekaas rabnaa inaan goyno waxaa taabani tan ama shortcutka c-da haddana iminka halka anoo jooga aan c taabto wuxuu ii tegayaa baashii madiishii oo goynaysay waa cutting tool yani cut tool moogtahay ama razor tool yaa la yidhahdaa marka adhoobka laakiin cut yaa la yidhahdaa sida yani caadiga marka cut toolka waxaa waaye c shortcut ama isgaad click dul siinay okay kaba soo qaadba click iyaan siiyey iminka waxaa waaye clipkii keliyaata ayaa go'ay muujidaa codkii lama go'ayo haddaan rabo inuu codku la go'o codkan waxaan kasoo control z baan taabtay dib baan u celiyey codkan waxaan kasoo qaadnay clip kale clipkan iyo codkan isma laha marka waxaan rabnaa codkan iyo clipkan inaan isku lifaaq karayno waxaan taabanaynaa select all yaan dhahaynaa right click yaan taabanaynaa link yaan dhahaynaa iminka saas way isku lifaaqan yihiin kaas sare maahina laakiin labadan hoose gebigooga way isku wada lifaaqan yihiin mujidaa gebigoogii oo dhan wada link yaan dhahay calaamadda yar linkan mujidaa waxaa waa sound levelka haddaa rabta inaad dalacdo ayadaad kor u qaaday haddaa rabta inaad xoogo oad naaqustana iyadaad hoos u dhigay badanaa waxaa laga dhigaa -5 -6 wax saasa markana xagana ka controli karta iyadana okay tanaan imanaynaa marka macal codkaan rabnaa inaan la goyno c baan taabanaynaa oo ka tool ah dhinacana taabanaynaa haddana xaggana imanaynaa meesha kale rabno kasoo halkaas rabnaa inaan goyno anagoo ka toolkii haysana ayaan sii dhahaynaa c ma dhahnay marka tanaa ku noqonaynaa oo iyadna v-ya shortcutkeeda v baan idhi marka haddaad rabto inaad tuurtid keligeed delete yaa taabani meesha way kuu faaruqaysaa haddaad hayso wax kale oo dhexgeliso waad dhexgelini haddii kale waxaad taabani control z baan taaban soo celiyay moogtahay ayadaad click dhihi waxaad taabani shift iyo delete marka kii dhexda tuurto labadii kale isku lifaaqaysaa intaad imika sandhihi laad kaba soo qaadba aniga laftarkeyga ka mid a markaan baranayay delete baan taabanayay haddana halkana dhexdaan taabanay kadib baan delete dhahay waa shay ka dheer waa yani waxaad save garaynaysaa waqti oo ah click iyo delete ah marka san markuu yahay hal mar baad click siinaysaa shift delete baad taabanaysaa oo iskugu kaa lifaaqaa وجد مع العطكي ولا قاي مع عطكي iyo waxa go'ay iyo clipkii اللهم صل على محمد سكرت waxana ka tuurno اللهم صل على محمد lumetric aan ka tuurana waadix maaha moogtahay kii hadeer aan gelinay oo aysiisa ku teenina oo kana ka tuur remove attribute lumetric waa kii hadeer aan tuuy greeninay waayo oo kalarada isagana remove dhe okay xagan markaan imano way isku dhex jiraan moojida kan taabo kadib screen dhe akaas oo hadda isku dhexmalma mujida intan sidan oo soo ahaa codka naga yar naaquso kana naaqus something like that hadda ku soo dhexbir akaasa marka wakaasa muhiimadu waxa waaye sidii oo la isku geegeyn lahaa clipier ama loo kala gogoyn lahaa marka isagoo advanced ah oo maaragtay effectigiisa color grading kiisa yani kalarada qaabka loo tuuy garay oo kuwan oo kale ay kamid yihiin waxaas oo markaan yaan imika wajida contrast markaan ku beeriyo exposure markaan ka yareeyo videoga adaxan ka taxakumi kartid marka waxaas oo markaan gali doonaa hadii la yiraahdo video yani oo waxaan soo qaadan doonaa oo caadiya oo aan edit garaynayno kuwaas markaan muxuu ahaa hadii la yiraahdo faahfaahin taxi badan ku sharxi doonaa ee tan imika introduction ahaan baan yaan ugu talagalnay inaan ka soo qaadano markay hadda imika waan kaba soo qaad waaban dhamaynaba clipkan saas u yahay rabnaa inaan ku save garayno file baan taabanayna
waxa sitiin soo ma xabadu dambaysa waxa way blending mode ku wuxuu ahaa screen mujidin aatana screen marka labadan clip is dulia line iska dhex muuqdaan barabnaa soo marka waxaan dhahaynaa export media kadib waxa rabta formatka rabta halkan ka dooranay gabi waa kana okay formatka waxaan rabnaa kadib waxaan rabnaa high bitrate maxaa rabtaa YouTube okay waa ka soo qadba YouTube 4K hadaa rabtid YouTube 1080p baan dhahaynaa hadaa rabtid meesha ay ku save garaysid specific folder hadaa rabtid imika aan wax igu save garanaya meesha caadiga laakiin markaan tan taabto halkan uu igeey mujida tan maraba ka soo qaadba waxaan rabaa tan ay clips ku qorata halkan rabaa inaan ku save garaysto waxaan dhahaa tijaabo okay save ayaan dhahayaa kadib export hadda imika clipka wuxuu iga dhigay 179 megabyte tan waxa way resolutionka hadda rabtid imika 4K aad ka dhigtid tanaad kama si xaqan aad ku qori hadda rabtid mar walba waxa ogaataa haddii clipka originalkiisu uu yahay 1080p oo aad rabtid inaad 4K ka dhigtid waxa ka halaabaya tayada ka halaabaysa waayo waxa way waa adoo xaashi sawir inta aad qaadid aad kala jeedid waay ama aad zoom garaysid xogaha dhowr pixel ka dhamaaye sawirkuna wuxuu noqonayaa hard yeelanaya laakiin haddii aad kulka hore aad ku duubtay 4K oo aad rabtid inaad 1080p aad ka dhigtid wuxuu noqonayaa sharp yani si fiican buu noqonayaa marka waa kana 1080p waaye 1920 by 1080p muxuu hadanay framekiisana waxa way 24 frame per second waatana frame rate allahumma salli ala square pixel yaan dooranay kuwan hadda kor baan kusoo dhiganay photoshopka allahumma salli ala maxamed waxa waa encoding settingska kuwan uma baahnin hadda encodingka waxa waa hadda kor baan soo dooranay waxaan idhi graphic card encodingkiisa waa kana software encodingkiisa software ma rabna graphic card kan rabnaa allahumma salli ala maxamed intan kale wax saas u sii muhiima target bitrate uma baahnin isku dhamaatay kadib waxaan taabanaynaa kuwan haddaad rabto import into the project haddaad rabtid isla folderka projectku kuugu save garaysan yahay ayuu kuugu save garaynayaa haddaad VR ka dhigayso oo kale imika video is VR halkana taabanay waxbuu kuugu beerbeerinay marka VR qof intuu muraayad xidho okyaalihii oo VR ta kuma daawanayo qofkan hadhow markaad ama YouTube geliso ama qof aad u dirto xaggana taabanaynaa marka export yaan dhahaynaa hadda waa kana imika maxay ahayday waa isku dhamaatay يعني وقت بدن بمقادم بقى اوكي فولدر كيبان يمانينا واكنا تجابو كيكو قرد واكنا ونو سيف جري 179 ميجا بايت يو نقط marka allahumma salli ala maxamed isagan play dhahayna baakaad saas u socdaa haddayntii oo aan labadii clip aan isku darnay hadda imanaysaa waatan qaaci iyo muxuu ahaadaanay jellyfishkii oo isoo dhex socda iyo codkii inta dambe cod ma lahayn laakiin codkan waa codkii aan uga soo qaadnay clipkii kala waay marka saas loogu edit gareeyaa bayska inta kalena iyadaas ka imanaysa haddii la helaa cashar kalan ku qaadan doonaa marka waa kaasa casharkiina maanta intaasuu noogu eegyahay oo hordhac ahaa Adobe Premiere Pro عشرة intan kasii faahfaahsan oo maca effect control panel control waxaan oo dhan graphic kadan color grading waxaas oo dhan hadii la helaa 10 soo socdaan ku qaadan doonaa marka waa kaasa video haduu ku cajabiyay like gare si share gare intan tan iyo video intan ka fiican ama lamida aan dib ugu kulmi doono walaalkeen Khadar Miicaad oo idin leh salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh